dadka inta badan waxay isweydiiyaan ama dadkeena bulshadu waxay aad isku weydiiyaan kalsooni qabka canshuurta ay bixiyaan salahan hooyooyinka laga qaado canshuurta ama dadkeena guud ahaanba waxa ay aad isugu celiyaan kalsooni qabka canshuurta laga qaado inay gaadho halkii loogu talagalay ama qasnadii dawladda maxaad waxa qoojin kartaa wasiir in halkii loogu talagalay ay gaadho canshuurtaasi oo ay ku dhacdo waxa jirta horta annagu dadkii baan canshuurta ka qaadaynaa laba waajibaad baa jira marka labada waajibaad qofku lagu leeyahay canshuurto inuu canshuurta bixiyo annagana waxa waajibaad in saaran canshuurta aan qaadnay halkii loogu talagalay inaan gaadhsiino waa laba waajibaad waxaan uga xaqiijinaynaa qofka canshuurta laga qaado wuxuu xaq u leeyahay canshuurta marka laga qaaday koow inuu rasiid ka qaato canshuurta looga qaaday isla markaana rasiidka uu qaatay inuu kaydiyo wuxuu xaq u leeyahay bishiba haddii joogto looga qaadayo waa laba nooc ama sanad uu yahay haddii joogto looga qaadayo bishiba ama sanadkiiba inuu xafiiska tagay rasiidyada uu urursado xafiiska uu la tago halay check karayo inuu yiraahdo qariigii buugaagta karay rasiidkan loo jaray inuu iswaafajiyo xaq buu leeyahay anagana waxa waajibaad in saaran inaan dabagal ku sameeyno shakhsiyaadka qaadaya canshuurto shakhsiyaadka laga qaaday ee canshuurta ku waajibtay xaq ay lahaayeen halkii looga talagalay inaan gaarsiino isla markaana aan ku dabagalno shakhsiyaadka qaadaya canshuurta anagana waa waajibaad in saaran marka waxaan isleenahay hadii la helo cadaan labada dhinac ka jirto shacabka laga qaadaya canshuurta oo sameeynaya wixii laga qaaday dabagalkoodii isla markaana haddana sameeynaya ka go'naansho ah inay dakhliga bixiyaan kaliya maaha inay raadiyaan sameeynaya ka go'naansho ah inay dakhliga bixiyaan kuna dhiiradaan in ay tahay waxyaabahan dakhliga ay u bixinayaan in uu yahay wixii lagu hagaajin lahaa horumarka bulshada ee 93 degmo iyo 6 maamul magaalo waxaabihii waxa looga qaban lahaa in ay yihiin inay ka dhaadhacdo isla markaana annagana ay waajibaad nagu noqoto in aan ka mar dhalno ama waajibaadkeenadii aan qaadano isla markaana ay noqoto wax labada dhinacba cadaan cad laga sameeyo waxaan leenahay marka waxa la gaari karayaa natiijadii guud ee loo baahnaa ee la wada lahaa waxa jirta in deegaanka ku soo badanayaan xadka meel lagu xidho canshuur lagu qaado hatta meelaha qaarkoodan canshuurta la qaadayo aysan lahaynba wax loo jarayo warqada idinkuna ay mararka duwan ay tagteen isku daydeen inaad ka qabataan ilaa imika xadkaha qaarkood laba qaadin weli dadka dhibaato ku haysta qof canshuur bixiya in xarig inta loo dhigto canshuur aan saxayn oo kale laga qaado arrintan maxaad uga qaban lahayd yaa maxay idinku hortaagan kelayadaba ama goobaha aan xadkaha lagu xiro labaan u kala saaraynaa mid waa mid dakhligada u xiran midna waa mid amniga xafiiska dakhliga iyo xafiiska nabadgelyadu daraasaad la sameeyay baa jiray kuwa dakhliga lagu qaadana in lagu ogaado kuwa nabadgelyo ahaan u xiranna in lagu ogaado isla markaa wixii labada ka baxsanna meesha laga saaro deegaanka waa run deegaanada kale iyo deegaankeena marka la soo eego goobo badan oo waxa jira xadkaha ku xiran yihiin baa jira ma dakhli baa lagu qaadaa mise laguma qaado kuwa dakhliga lagu qaadana waan garanaynaa kuwan lagu qaadina waan garanaynaa kuwa sharci darrahana way jiraan isla markaana u baahan nidaamkii sharciga ah in loo maro marka waxaan isleenahay waa shaqooyin inoo yaala lana qaban doonaan isleeyahay laakiin waxaad qaadeen daatadii baan ururinay daatadii baa la hayaa saxdeeda inta dakhliga u xidhneed inta marka tiimahan in lagu baxo intana laga soo reebay wixii kale dheeriyana meesha laga saaro